kulanti wacan asalaamu calaykum daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka oo hadahay oo kale aad ka daawataan telefishinka Somali Cable studio uu ku leeyahay magaalada Muqdisho alaaba barnaamijka topic ama mowduuc muhiim ah oo ay inta badan daawadayaasha barnaamijkan soo dalbadaan oo caafimaad oo aad ugu baahan yihiin ayaynu uga hadalnaa mararka qaarna inaga ayaa u xulno toddobaadkan waxaynu u soo xulnay oo dad fara badan ay su'aal naga weydiinayeen thyroidka amba qanjir kamida qanjirada jirka bini'aadamka gaar ahaan qaybaha kore ku jira oo dhibaatooyin fara badan Soomaalidu ay ku qabaan kaas oo dadku qaar aysan aqoonin halka kuwa kalena iyagoo yaqaano aysan aqoonin marxaladaha uu maro iyo dhibaatooyinka uu keeni karo haddaba maanta waxaan sharaxaad guud ka bixinaynaa thyroid oo aynu jecelnahay in aynu dhigdhigno kadibna su'aalaha aad ka qabtiin ayaad naga weydiinaysaan sidoo kale barnaamijka intuu jiro maadaama aan fursad idin siinayno tala dhakhtarna aad u baahan tihiin hadday jirto su'aal caafimaad oo kugu taagan ilaan wixii xanuuna dib looma dhigi kare waa na weydiin kartaa oo Dr. Cali Mucuu Aweys ayaa ila fadhiya oo su'aalahaas oo dhan nooga jawaabaya marka hore waxaan jeclahay in aan soo dhaweeyo oo uu sharaxaad kooban naga siiyo maadaama maalmahan magaalada Muqdisho ku sugan yahay isla markaana isbitaalka international uu ka howlgalayo dhakhtarku bal inuu noo sharaxo thyroid iyo saameynta uu leeyahay iyo waliba siyaabaha uu ku yimaado بسم الله الرحمن الرحيم عبد العزيز آدي أدبن كوم هاد علنا يا سؤاشان أدي ويدينيسو وحن كلا ربا إنانو مهاد عليو سومالي كيبل شغالي هذي مدح هذي ميل كستا جوجانبا إننا نراهدو آدي أدبدو مهسنتين فرصة دان وناكسن أدنسين إسان أن أمد الصوماليات تلا دختر يوعي قلن يوغيسين يوحكستبا إنانو قصة marka xigtana waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba qaasatan reer Muqdisho aan waqti xaadir aan ku ahay aan la joogo iyo gobolada oo dalka oo dhan Soomaaliya meel kasta ay tahayba waxaan leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa calaykum salaam doctore aad u maasan tahay marka hore waxaan rabnaa thyroid marka la leeyahay garashadiisa yar haddana saameyn badan ayuu ku leeyahay nolosha bini'aadamka marka thyroidkan dad fara badan oo waxaa jira ka cabanayo laakiin aan aqoonin waxa uu yahay iyo kuwo intooda badan su'aal naga soo weydiiyay caafimaad bal sharaxaad naga sii بسم الله الرحمن الرحيم عبد العزيز مركوبات يا مرلوات يا مرسد حاد بون كوما دعلنا يا مركا حكتا تايروت وحلي رادو ومد الصومالية ساس ومتقارنو والله جهلا ما هني أما markay mataqaanaa saameyn ay ku samayso bay dhakhtar u tagaan dhakhtarkaasa marka dhahayo thyroid cudurkan thyroidka la yiraahdana aqoontiisa aqoon gooni buu rabaa maaha dhakhtar kasta ma yaqaano wuu ogyahay inuu jiro laakiin waxaa jira system loo baaro waxaa jira system lagu daaweeyo wuxuu ku xiran tahay cudurka markaas adiga ku haya muxuu yahay marka thyroidka waxa la yiraahdo horta afar nooc buu kala baxaa afarta nooc markaan ka sheekeeyo high thyroid waxa la yiraahdo waa kan sareeya marka waxaa jira low thyroid mid la yiraahdo waa kan hooseeya iyo goiter mid la yiraahdo jira inta ku soo buuranaysa oo dhuuntana soo buuranaysa marka kalena Hashimoto thyroiditis midka afraadna ayaa la yiraahdaa waxa u badan dumarka uurka leh ayaa ku dhaca marka Hashimoto thyroiditis waa infection oo ku dhacaya ma aragtay thyroidka marka thyroidka sidee buu ku yimaadaa goormoo yimaadaa marka Soomaalida ma taqaano hooyada marka caloosheeda aad gasho oo jirkaaga dhismaaya ayuu mid ka mid yahay waxaa jira hormoono fara badan oo asaga oo ka mid yahay saddex asaga ka mid ah oo kuwa koritaanka ku jiro oo kuwaas ku jiro oo laftigooda lagu koro oo korsiimada ay ku leedahay xataa saameyn bay ku leedahay waxay saameyn ku leedahay ma aragtay dhalmada ama ragga ama dumarkaba labada dhinacba saameyn buu ku yeelanayaa oo waa dhibaato ku gaarsiinayaa haddii aad mataqaanaa runtii hadda waxaad arkaysaa thyroidka markaad qabto high thyroid waxa la yidhahdaa hyperthyroidismus waa kan sareeya maxaa lagu gartaa dhib fara badan adiga maalinkaas oo dhan waxa waaye orodkaaga badan waa daal badan tahay daal badan hurda male shuban ayaa kugu dhacaya murqahaaga hoos u dhacaya murqa xanuun caloosha ku xanuunaysa maskaxda ku xanuunaysa madaxa ku xanuunaya indhaha ku soo baxaya markii dambe thyroidka la sheegay waa kaas bahalkaas weey oo dhuunta ku jiro oo kan sareeya naqanaya
marka hyperthyroidism la yiraahdaa saasaa lagu gartaa diseasekaas oo khatarka ah weliba antibody wax la yiraahdaa la baaraya antibodyga markii la baaro ayaa la ogaanayaa wuxuu yahay T3 T4 TSH wax la yiraahdo markii la baaro la ogaanayaa meesha laga haysto sida indhaha saasay naqanayaan indhihii bannaankii u soo baxayaan waa kan sareeya kan hooseeya hadda waa hypothyroidism waxa waaye asagana sidii waaye ma shaqaysan kartid hurdadaada badan ma dhaqaaqi kartid koob lagu cabishaa lagu ma qaadi kartid daal fara badan cayil qabow fara badan wadna garaac calooshaas kaa soo baxda calool weyn aad yeelato adiga waxa waaye wax midba midka ku xiga ayaa ku imaanaya waa kan hooseeya marka laftigiisa waa dhibaato fara badan Hashimoto thyroiditis waxaan sheegay hadda waa kanna dad dumarka uurka leh waa immune systemkaaga ayuu gelayaa infection oo immune systemka gelaya waaye inflammation iyo infection immune systemka gelaya markuu kaasu galo sidee lagu daaweeyaa marka waxaa lagu daaweynayaa haddii uu sareeyo dawow leeyahay oo gooni ah hadduu hooseeyo dawow leeyahay haddii kalena mataqaanaa oo kan kale uu leeyahay dawey leedahay laftigeesa marka waxay leedahay ma aragtay haddii kale radiation jira radiation haddii lagu maaro waayo waxaa la sameynayaa radiation la sameynayaa hal wiiga lagu soo xirayaa guri qof ku soo galaya male dhakhtarka mooyaane iyo naarska ma ahane oo ay dhan xiran laftigood mataqaanaa waxa waa adag yahay cudurkan bahal radiation lagu siinaa haddii lagu siiyo saasay sheeko ku dhamaanaysaa markii daawo lagu siiyo dhakhtarka uu daawo ku siiyo wax badan aad iska dareemaysaa wixii uu ka degayaa aad iyo aad buu kaaga degayaa marka dhiiggaasaa la baarayaa saad arkayso computer la saarayaa dhuunta waa la fiirinayaa waxa ku haysta ma kii sareeya ma kii hooseeya ma kii marka waa kaas daawada uu ku sheegayo daawadaasaa lagu siinayaa meeshaas markuu qabsado kan mataqaanaa hooseeya hypothyroidism-kan laftigiisa daawo leeyahay daawadaas haddii lagu siiyo kan goiterka la leeyahay goiterkana waxa waaye operation waaye qalitaan ayaa u badan laakiin laftigiisa dawow leeyahay markuu goor hore yahay haddii uu laakiin wixii weynaado kan waa kan goiterka kaasaa la yidhaahdaa kan saddexaad hadduu weynaado uu aad weynaado hadee waxay u badan tahay badi in laga qalo laakiin waa jira laftigiisa yodaye wax la yiraahdo ayaa ugu fiican markuu yar yahay yodaygaas haddii lagu siiyo bahalka dibba u naqanayaa yoday oo 100 miligram ah haddii lagu siiyo ilaa 6 bilood bahalka dib buu kaaga naqanayaa marka waxaad arkaysaa hormoonkaaga oo dhalmada ayuu dhibaato u geenayaa dumarka dhalita ma dhali karaan ilmihii baa diidaya haddii uur yeelatana wuu soo dhacayaa bahalka dhibaatadaas uu leeyahay type-ka ma aragtay hyperthyroidism-ka la leeyahay kan ay hypothyroidism la leeyahayna mataqaanaa laftigiisa oo adiga dhan tacbaan hurdo balaayo adiga dhan daal fara badan kanna mataqaanaa waa kii goiterka ahaa asaga laftigiisa mataqaanaa wuxuu leeyahay daal fara badan buu leeyahay ragga iyo dumarkaba labadaba saameyn buu ku yeelanayaa oo mala dhali karo dhalma ma jirto dhalmada waa diidayaa mataqaana uur hadaad qaado way soo dhacayaan 4 wiig 6 wiig ka bacdi ma jiro laakiin markuu bahalka uu sareeyo adiga dhan orod fara badan iyo daal fara badan iswata waa ordaysaa mana socon kartid maxaa dhacay wadnihii baa garaac zaa'id sameynaya wadnaha ku garaacaya oo zaa'id ku garaacaya daal fara badan ma hurdaysid hurdo la'aan habeenkii oo dhan walwal iyo balaayo ayaa kugu furan adiga dhan ma taqaanaa runtii adiga cudur ku hayo aadan ogeynna meeshuu ka hayo waa dhibaato marka dadka qaarkood markay yimaadaan cisbitaalka yimaadaan waxay leeyihiin waa leegu dhan yahay madaxa ilaa lugaha ay xanuunaya ma yaqaanaan meeshaas ay xanuunaysa ma jirtee meel walbaa leega hayaa lagu leeyahay murqaha ku xanuunaya maskaxdaa ku xanuunaysa calooshaa ku xanuunaysa mataqaanaa meel kasto ayaa xanuunkaa qabanaya waa tahay waxaa maqli jiray dhakhaatiirta markii loo tago meel ifiyo male allah na caafiyo dad badan iska xanuunsan daawadayaal waxaan filayaa inaad aada u wada dareenteen sharaxaadda uuna siiyey dr cali macow aweys iyo tyrod waxa uu yahay hadda inagoo ka dharagsan in aan su-aalaha doctor ka weydiin karno qaybaha su-aalaha waxaad naga soo wici kartaan whatsapp lambarka waana eber 6564631 mar kale haddii aan ku celiyo waa eber 6564631 haddii aad dalka dibaddiisa joogto plus 25261 ayaad leedahay kadib sida caadiga oo soo wacaysaa 6564631 sida ayaa noo soo wacaysaa si su-aalahaaga
aynu dhakhtarka u weydiino dhanka WhatsApp-ka ayaadna su-aalaha naga soo weydi kartaa. mar kale waxaan jeclaan lahaa inta aan u gudbin su-aalaha doctor marka laga hadlayo thyroidka marka laga soo gudbo in uu saameyntaas leeyahay haddana ma jira qofka calaamado uu ku garan karo markuu thyroid iskaga shakinayo uu leeyahay calaamadahaas isku aragtay ama uu thyroid yahay dhakhtar aad. cabdicasiis aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa haa calaamado waa jiraan kulligood calaamay leeyihiin oo qaas u ah calaamada qaaska ana wax kale maaha markuu sareeyo walwal badan hurda la-aan kuleel fara badan mataqaanaa dhidid fara badan gacnahaagaa dhididaayo lugahaagaa dhididaayo marka adiga xanaaq fara badan maba lagu celin karaba marka maalinkaas oo dhan jinnigaa kugu shaqaysanaya ma ogid wax ku hayo jinni baa kugu shaqaysanaya marka kaasna mataqaanaa waad ogaanaysaa waa kan sareeya kan hooseeya wax waaye waa cayilaysaa meelowkiin ma garan maysid cunta ma cuni kartid wax cuntada ma cunaysid adoon waxbada cunaynin ayaad buuranaysaa socodkii baa ku dhibaaya ma dhaqaaqaysid fadhi kama kici kartid bakeeri ilmahaas wax ku cabay ama oday wax ku cabay ma qaadi karaysid waa adiga dhibaato fara badan ama ninka ragga ha ahaado ama dumarka ahaadeen inkastoo uu dumarku u badan yahay marka calaamadaas lafteeda marka waxaa jira dad mataqaanaa 4 sano 5 sano isqaba oon ilaa curur qaadaynin mataqaanaa oo isa laakiin waa dareemaysaa adiga hadduu cudurkaas ku haya kan kore kan sare kan saddexaad goytarka la yidhaahdan hadda halkaasaa kusoo bararayso barar baa imaanaya oo markaad miraayada saa u istaagto waxbaa inta soo kuusan waa lagu ceejinayaa ceejo saddexdaba ciijay leeyihiin habeenkii ma seexan kartid waxbaa ku qabsanaya halkaasna waa qaf la ceejinaya oo kalaad naqanayso waa tahay goordhow waxaan furi doonaa oo aan fursad u siin doonaa qeybaha kala duwan ee daawadayaasha barnaamijka inay lambarka naga soo wacaan WhatsApp-ka si barnaamijka markaasi su-aalaha thyroidka ku aadan ay Dr. Cali Mucaawe is weydiiyaan sidoo kale waxaynu u fasaxi doonaa dhammaanba su-aalooyinka ay doonayaan caafimaadka ah in dhakhtarku ay weydiiyaan balse su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay marka laga hadlayo thyroid waxaad noo sheegtay marxaladaha iyo calaamadaha lagu garto sharxaad baan naga siisay ma jirtaa da u gooni ah oo la leeyahay da'daas qofku markuu gaaro ku dhici karaa mise da kasta ayuu ku dhacaa xanuunkan cabdicasiis aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waa su-aal cajiib ah oo aad iyo aad muhiim u ah su-aal aad iyo aad muhiim u ah waaye su-aashan waa jiraan mataqaanaa cudurka lama dhihi karo da gooni u ah from 5 ilaa 85 sano markaad ka bilowdo ilaa 80 jirka ya ayuu ku ahaan karaa ilaa 80 jirkuu ku ahaan karaa marka waxaad ogaanaysaa cudurkan waa cudur aan qafna khaas u ahayn ood ku dhalanayso waa dhaxal buu galaa laakiin waa lagu dhashaa adiga aad baa mataqaanaa ku dhalanaysaa adigoo mataqaanaa waxba aadan ogeyn markii aad korto marka muxuu yeelayaa marka ugu horeyso oo aad dareenkiisa aad dareemayso markaad yar tahay weliba oo dagaalkaaga uu fara badan yahay war kan dagaal badnaa kan muxuu qabaa la leeyahay laakiin markii baaliqa la gaaro ayaa ugu daran markii baaliqa la gaaro ayaa ugu fara badan dhibaatadiisa markaas waxa waaye hadday dumar tahayna caadadii ka daahaysa caada ma leh oo markii 14 sano ku jirtaa la leeyahay takhtar inta loo geeyay caadadii ma imaanin haddii uu ninka ragga yahayna dee doobnimadii baa dhama aan imaanaynin doob ma leh mataqaana lama arkaayo ma aragti inuu doob yahay codkaan weynaanayo oo ma laha marka kaas ayaa lagu gartaa see u badan tahay taasaa lagu gartaa marka cudurkan cudur fudud ma aha cudur yarna ma aha runtii waa cudur aad iyo aad saameyn uu kugu yeelanaya adiga dhan marka weliba marka caloosha hooyada ku jirta uu bilaabanayaa hormoonkan sidii hormoonada kale oo kale korsiimadaadu wax ku leeyahay markaad xabka tahay markaad korayso ayuu shaqo ku leeyahay markaad soconayso markaad dhaqaaqayso enerjigaaga markii sanad aad jirto markaad sanad iyo bar jirto markaad istaagayso markaad soconayso waxaas oo dhan saameyn buu ku leeyahay waa tahay waa mahadsan tahay doctore mar kale waxaan u sheegayaa dhammaan saaxiibada barnaamijka ku xiran in iminka aynu qadadka furnay waxaad naga soo wici kartaa taleefanka eber 656 waxaad naga soo wici kartaa haddii dalka dibaddiisa aad ku sugan tahay +25261 ayaad ka hormarinaysaa sida ayaad usoo wacaysaa kadibna su-aashaada ayaynu jawaab ka bixin doonaa sidoo kale saaxiibada dhanka facebooka ayay noogu soo qori karaan waxay noo soo diri karaan haddii ay suuragal tahay fariimo qof ayaa doctor wuxuuna weydiinayaa waxa uu leeyahay haddii dhuunta uu igaga soo baxo meel barar ah oo ay qanjir tahay
qaybta kore miya mise waa qaybta hoose aan u kala ogaano aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa qofkan maaragtay facebooka noogu soo qoray meeshuu joogo ummadda soomaaliyeed ee joogtana waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta waxaa jira qanjira jira meeshaan ku jiro lamfa la yidhaahdaa lamf kaasu shaqa kuma laha halkan dhexda ah meesha maaragtay la leeyahay maaragtay waxaa ku jira aadam stock baa la yidhahdaa meeshaan waxaa ku jiro meeshaas uu galaa laakiin markii qanjir la yidhaahdo ama waa halkaasuu gelayaa runtii waa meeshaas maaragtay ayuu galaa meeshaas ayuu gelayaa haddii la yidhaahdo lamfka wax la yidhaahdo qanjir wax la yidhaahdo kan waa wax kale oo dhinta ku jiro hormoon buu sameynayaa 24 saacadood kaasu muhiim waaye qof kastoo bini aadam ah oo nool ayuu muhiim u yahay marka waxaan kuu sheegayaa cudurka haddii cudurkaa haleelo meeshaas wax fudud maaha dadka badi soomaalida ma oga mana dareemi karaanba badi ma oga mana dareemi karaan marka waxa waaye cudurkan cudur fudud ma aha waa cudur aad iyo aad u adag hadduu dumarka haleelo saan kuu sheegay caadadii baa wareereysa caadadii inay badato 2 jeer inay timaado inay caado la-aan dhacdo inay caadadii mataqaana adiga marba si waxaad arkaysaa dumarka qaarkood way ku imaanayaan waxay ku leeyihiin 3 bilood bishii 3 jeer buu imaanayaa kuwan waxay ku leeyihiin 3 bilood caado ma hayo tayroodkaas ayaa mar kastaba ku yeelan kara saameyn ku yeelan kara haddii wax la dhali waayo haddii caadada wareerto saameyn buu ku yeelanayaa inkastoo dumarka waxaa hormoon gooni u ah raggana hormoon gooni ah qaas jira laakiin kaasna wuxuu ka mid yahay hormoonadaas uu ka mid yahay oo mar kastana loo baahan yahay noloshadaada dhan wadnahood saameyn ku leeyahay haddii uu dhibaato kaa gaarto wadnihiiba garaaciisa zaa'id naqanaya hadduu ka sareeya yahay kan hoose hadduu yahay wadnaha garaac male dhaqaaq male activity male ma dhaqaaqaysid marka waa dhib badan yahay aad iyo aad buu dhib badan yahay su-aasha guudina waxay tahay marka laga hadlayo tayroodka stebiska qofku ma ku bilowdaa oo dhowr step u gudbaa mise step walba midka kore iyo midka sare hal mar qof ku dhacaa mise wuxuu ka bilaabanaa qaybta kore labaad saddexaad waa step soo leeyahay cabdicasiis aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashan lafteedu waa muhiim ma jiro qayb kore iyo qayb hoose iyo ma jiro ama kan sareeya ayaa kugu dhacaya oo waxaad qabtaa hypothyroidismus ama kan hoose ayaa qabtaa hypothyroidismus ama kan goiterka la yidhaahdo aad qabtaa mid saddexdaas mid ka mid ah keliya ku haleeli kara ma jiro wax isbedelaya ma jiro laakiin waxaad dareemaysaa marba marka xigta dhibaatadaadii baa ka fara badanaysa waa lagu hayaa xanuunaa ku haya meel laga hayna garan maysid marka dhibaato waxa waaye mataqaan familka markay dareemaan adiga dagaalkaaga markuu fara badan yahay xanaaqaada uu fara badan yahay oo iska oynayso oo adiga dhibkaaga uu badan yahay markaas waaye marka la leeyahay warbal tayroodka la fiiriyo marka dhakhtar u tagto waa aqoontiisa uu leeyahay haddaad tiraahdo ninkan waxa waaye ninkan waa ayaamtan waa loo maaralayahay oo ma lama yaqaan meel laga haysto markastaaba cidda dhan wax la heshiin kara male dhibaatadaasaa jirta marka waa inuu tayroodkaas la iska fiiriya waa tahay daawadaha ugu horreeya ayaan fursad siinayaa qadka ku jira halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waran waan ku maqlaa soo dhow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso walaal magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan oo idinka soo wacaya magaalada berbera ee gobolka saaxil maxamed soo dhow haddii aad su-aal qabto okay walaal su-aasheeda waxay tahay xaaskayga waxay ka cabanaysaa xanuunka loo yaqaano polycystic ovary maxay ka cabanaysaa xanuunka loo yaqaano polycystic ovary BOS baa laga helay markaa dawaa la siiyey dhakhtar Ethiopia bay tagtay dawadii halo maxamed halo waanu ka xunnahay maxamed haye maxamed marka dawadii kumay raysanin wax isbedelo kuma yeelan caadaduna way ka yaraa khalkhalaysaa oo caadadii baa ka khalkhalaysaa bal markaa doctorka waxa weydiin lahaa xanuunkaas iyo arrimihiisa dawada loo soo qoray maxamed magaceed dawada wallahi dawadan iyo ma xasuusnin magaceedeedii laakiin waa dawo bil iyo badh bay qaadanaysay
wax isbedelana kuma yeelanin oo waa dawooyin adigu hormoono ku badan bay dhimaysaa u dhaqteen ku yiri waayahay marka weli wax isbedela kuma yeelanin caadaduna way ka khalkhashaan u tahay waayahay doctorkan weydiinayna insha Allah su'aasha jawaabteeda waxa leeyahay daawada waxba kuma aysan qaadan marka maxamed oo naga soo wacay barbara maxamedow aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa aniga iyo Somali Cable oo caawa live magaalada Muqdisho aanu fadhino marka xigta reer barbara saahal oo dhan waxaan leeyahay gobolka saahil salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa salaamaya marka xigta haddii aan gabadha u soo noqdo poly ovary cyst la yiraahdaa poly ovary cyst kolleyba haddii barnaamijka aad la socoto wiigaga soo socdaan ka hadli doonaa weliba iyadoo sawir aan wadin tusi doonaa iyo sida dhibaatada ay keento horta polycystic ovary waxaa lagu gartaa oo ugu muhiimsan wiiga adiga bishii 2 jeer 3 jeer inay xeejka u yimaado baa lagu gartaa marka xigta waxay ku xiran tahay polycystic ovary meeshay ka timi horta in la ogaado ma jiro laakiin dawa biliya bar kaliya la qaato ee bahasha baabi'inaysa ma jiro ama 3 bilood baa jira ama 6 bilood baa jira waxay ku xiran tahay cudurka siduu yahay waxaad ogaanaysaa maxamedow cudurkan poly ovary cyst la yiraahdo haddii wixii ay sii socdaan ay sii kordhaan dhibaatooyin fara badan bay keenayaan dhibaatada waxaa ka mid ah dhiikar inuu yimaado macaanka inuu yimaado sokorta xaajiyada haddee ilaahay ma u keeno laakiin gar iyo balaayo iyo shaarbo inay soo baxaan waxaasoo dhan ayuu ku daba wataa ma aragtay polycystic ovary laakiin bil iyo bar dawa la qaadan karaa ee wixii ay ku bacayaan ma jiraan 3 bilood baa ugu yar 6 bilood adiga waxay ku xiran tahay hormoonada ay leedahay siday bay yihiin waxay ku xiran tahay ma aragtay cystiga intee buu la eg yahay dhir weynkiisa marka waxaa jira cudur la yiraahdo toxoplasma la yiraahdo oo bisada laga qaado iyo mid kale ma aragtay xoolaha lo'da iyo geela iyo ariga laga qaado la yiraahdo brucella kaas laftigiisa poly ovary cyst buu sameeyaa marka xaajiyada waxaan ku dhihi lahaa hadee Ethiopia wax dawa kamayna helin haddii aad heli karto takhtar wanaagsan bal ka raadi oo waxaan garanaya maahan ma aragtay takhtar fiican mayna arag marka waa la sixi karaa waana laga daweyn karaa ilaah baa dawale dawana ilaah baa keeni karaa caafimaadna ilaah haya marka ubadna haddii lama dhali karo haddii ovary cyst uu jiro sida uur loo qaadaana way adag tahay waa taada maasantahay doctor maxamed waan filayaa iyo barbara jawaabtaas inaad hesheen barnaamijku waa barnaamijka caafimaadka daawada waxaad naga soo wici kartaa WhatsApp number furuhu waxa waaye +25261 haddii aad dalka dibadiisa joogto haddii kale eber 6 46 31 82 haddii aan markale kugu celiyo furuhu marka dibadda aad joogto sida caadiga +25261 46 31 82 haddii aad u baahan tahana shaashadda ayuu ku qoran yahay lambarka halkaas ayaad si dhaqsiya uga heli kartaa dhammaanna waxaad soo weydiin kartaa su'aalaha caafimaad balse mawduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay intiisa badan xanuunka thyroidka doctor marka laga hadlayo dumarka iyo ragga waxa cudurkan la leeyahay labadaba uu saameeyaa su'aal kale aan ka weydiina laakiin waxaan hormarinayaa qofkan qadka ku jira hadda hallo assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga iyo halkan naga soo wacayso walaal magacaygu waa Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ku sugan degmada Hodol magaalada Muqdisho axmed soo dhawow waan dhawahay waan salaamayaa telefishinka Somali Cable iyo Dr. Macow Dr. Macow marka waxaan weydiin lahaa waxaa ka mid ahay horaantii sanadkan markuu Dr. Macow magaalada Muqdisho imaanaya waxaa ka mid ah dadka bukaanada soo booqday isbitaalkiisa magaalada Muqdisho marka maadaama aan la kulmay doctorka dhowr mar waxaan galay baaritaanka cudurkan thyroidka marka marna isaga jooga marna dhaqaatiir kale la kulmay marka qiimihiisana aad ayuu u sareeyaa ma laga yaabaa inuu doctorka qiimo dhimis ay ku sameeyaan qaabka baaritaanka dawada maadaama marsada maadaama dadka shacabka Soomaaliyeed noloshooda dabaqada hoose ay ku nool yihiin waan gartay su'aal joogi doona doctorka ilaa Janaayo Febraayo waan gartay su'aasha kale oo aad qabto caafimaadka والله دكتورك والله كل مي مركا حنونا كلا دارك يحميتي وحيابنا عسان كلا كل مي مركا داوين فربنا ويقرأ دكتورك مركا سو نقشيدي سمركا دم لما كل منا سفر أيو نيروبي وبحي مركا لما كل منا ملاقيها مركا دكتورك إنه سيجود مقالة مقدش سؤال سيان ويديلنا واتاي سؤال كود حق سابتن تحي وحلو قيمها تايرويدka waxaan marnaa yanda asna sheegteen inaad hoos u dhigteen
marka bal jawaab naga sii tan kalena waxay ku aadan tahay ma joogi oo marwalo ma ku imaan karaa ku leeyahay magaciisa axmed xaaji axmedow aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa haddee kolley aqoon baan isu leenahay kowdhe xaafadda ma aragtay ama degmada hodon dadka degan iyo soomaaliya oo dhan waa salaamayaa ma aragtay iyo muqdisho khaasatan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga iyo Somali Cable aan caawa live magaalada muqdisho u fadhino marka xigta horta sidaan aniga ma ka warqabo lacagta uu joogo ani lama socdo laakiin sidaan ogahay mataqaanaa tayroodka wixiisa ma fududa marka waxaan u malaynayaana in mataqaanaa $30 ayna ka badnayn mataqaanaa saddexda xabo kiiba $10 in lagu baaro sidaan ogahay aniga bal waa laakiin waa ka daba tegayaa insha Allah laakiin lama socdo marka xigta kolley qondo waxaan soo sameeyey bishaan dhammaadkeed dad badanna haddee way ii baahan yihiin oo waa dareemayaa hadda teleefonada xataa waa badan yihiin dadkiina way soo socdaan waan arki doonaa haddii aan ku dari doonay haddii kaleba la arki doono laakiin qoondahii aniga aan soo sameeyey maxaa dhahay cisbitaal cusub ayaa Nairobi ka dhisnayd cisbitaalkaasaan rabnaa sanadka awalkiisa inaan furno laakiin waa fiirinaynaa haddii ay dadka ay ii baahan yihiin dadkayga ma ka tegaayo waa u joogayaa xoogaa laakiin qoondada aan soo sameeyey waqti cayiman baan soo sameeyey ilaa bishaan December dhammaadkeed oo maanta 11 ay tahay ayaa markii hore kusoo talagalay 6 week ilaa bisha 8 week bisha dhammaadkeed waa taa waan filayaa in su'aalahaas Axmed looga jawaabay halo salaamu calaykum magacaaga marka hore iyo halkaad ku sugan tahay magacayga ceel bartaan jooga magacayga Axmed Balida Axmed su'aasha weydiin kartaa su'aashan weydiinaya waxa weeyaan waan xanaaq badanahay dadna lama heshiiyo meel ilaa saa u socda marka xanuunkan kaneega doctorku sheegaya ma waxbuu ka quseeyaa yaa rabo doctorka inuu weydiiyo yani carada saameyn mu ku leeyahay waayahay waa Axmed ceel bardu naga soo wuxuu leeyahay xanaaq badanahay tayrood saameyn ku leeyahay axmedow aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aasha aadna weydiinayso aniga ee Somali Cable oo caawa live aan u fadhino magaalada muqdisho ceelbarda ummadda degan ee Soomaaliyeedna waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta haddii caraf fara badan ama dabeeco xumo ayaamahan dambe aad isku arkayso waa ku leeyahay bahalkaas iska fiiri isagaa ugu badan haddii dabciga uu xumaado dagaalkaagii iyo xanaaqaagina uu fara badan yahay asaga ayaa boqolkiiba 85% aan ku dhihi karaa asaga ayaa ku shaqo leh waxaa kaloo jira ma aragtay haddii maalinkaas ma aragtay waxyaalo qaarkood ay ku dhibayaan oo dhib uu jiro waa keeni karaa laftigiisa haddii ay dhib uu jiro maalinkaas ma aragtay magaalada markaad ku jirto se wax rabtid inuu kugu soconin oo mataqaanaa aadan ahayn ma aragtay maqsuud aadan ahayn waxaa dhici karta marka ina xanaaqaagu iska yimaado laakiin tayroodka iska baar waa tahay waan filayaa Axmed in jawaabtii markaasi ku filnayd barnaamijka la siiyey weli waxaynu bartan ka jirnaa barnaamijka caafimaadka oo inta badan saaxiibadu ay taleefanka naga soo wacayaan su'aaluhuna maanta waxay ku saabsan yihiin tayroodka inkastoo intooda badan su'aalo mawduuca ka baxsan ay doctorena soo weydiinayaan dadka barnaamijka soo wacaya maadaama ay muhiim su'aalahaas u yihiin doctore tayroodka sidoo kale marka laga soo gudbo in cudurrada qofka markay ku dhacaan uu caatoobo isaga waxaa tiri qofku waa cayilaa marka maxaa keeni kara qofkii oo xanuunsan inuu cayilo cabdicasiis aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa sidaan hadda uu sheegay tayroodka 3 nuuc buu kala baxaa kan sareeya haddaad qabto waa caatoobaysaa cuntana waa daldalaysaa waxna ku tari mayso wax tar ma leh oo adigii baa marka gubanaya dab baa kugu shidan kan ma aragtay hooseeya haddaad qabtana adoon waxba cunin baad iska cayilaysaa calool baa kaa soo baxaysaa waad cayilaysaa baruur baad yeelanaysaa fadhigaaga badanaya ma dhaqaaqi kartid waa kan hooseeya adoon waxba cunayn baad baranaysaa marka asaga ayaa shaqa ku leh kan sareeya hadduu yahay jirkaaga dee motoor baa ku shidan kan hooseeyana hadduu yahay motoorkaasaa kaa dansan waa tahay waan filayaa in aan wada garanay halo salaamu calaykum halo halo qofkaasi waan ka xumahay waan ismaqli la'nahay sidaa daraaddeed waan gudbayaa barnaamijku waa barnaamijkii caafimaadka Dr. Cali Mucu Aweys ayaa marti noogu ah daawadayaasha waxaan ka codsanaynaa haddii ay jiraan su'aalo muhiim ah inta barnaamijka qaybaha hore aynu ku jirno inay noo soo gudbiyaan waxayna nagala soo xiriiri karaan taleefanka
plus 25261 macnaha waa furaha markii Yurub aad joogto amba America amba meel kale oo dalka baxsan oo plus 25261 ah laakiin dalka haddii aad joogto si caadi ayaad soo wacaysaa si markaasi aynu su-aashaada u gudbin. Hallo, asalaamu calaykum. وعليكم السلام walaal. walaal marka hore TV-ga iska dami amba iska fogay si aan ku maqalno haddii kale codkaaga ayaa nagu soo noqonaya suuragal nooma aha inaan isla wada hadalno. Haye walaal, doctorkan rabay inaan wax weydiiyo. magacaaga marka hore halkaad naga soo wacayso. Esther Abdi waxaa idinka soo wacayaa Kismaayo. haye Waxaa rabaa doctorkan inaan weydiiyo caadada markay ku dhacdo ugu yaraan bil ama bil iyo ka badan ee marmar iska soconaya mar way iga soo daahee dhibaato noocaasiita aan ku qabaa xagga caadada. ma ku xanuunsataa oo xanuun ma dareemay? xanuun xagga keliyaha iyo waxyaalahaas madax xanuun saaid waxaas ka dareemaa. wax xinjira oo kaa yimaada ma jiraan oo kaa soo baxo? maya wax xinjiro iga soo dhaca ma jiraan waa dhiig iska bibiyo dhiigna u eg dhiigna ahayn marmar iga imaanaya marka caadada bil iyo xoogaa iga maqnaato. meeqa sana jirtaa? 22 sano. waa tahay waa xaas maa tahay mise? xaasana. haye doctorkan u gudbinaynaa su-aasha jawaabteeda. Esther Abdi Kismaayo joogtaa. Esther. Esther aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa aniga iyo Somali Cable TV oo caawa live aanu fadhino magaalada Muqdisho. marka xigta reer Kismaayo waxaan leeyahay meel kasta ay joogaanba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xigta haddii caadada ay fara badan tahay iyo hadday yar tahay bishii dhan haddii hal mar aad aragto 28 maalmood mar waa inuu yimaadaa. haddii wixii ay badan yihiin iyo hadday yar yihiinba labada dhinacba waxaa ugu badan boqolkiiba 95% hormone disbalance jira. hormone disbalance waa hal qodob. qodobka kale waxaa jira cudur la yiraahdo fibroid. fibroidka laftigiisa wuxuu keenaa caado daahis iyo caado badan iyo caado mataqaanaa uu soo noqnoqota. adiga waxaad u baahan tahay Estray in hormoonkaaga la baaro 8 hormoon ama 9 hormoon wax la yiraahdo in la baaro 9kaas hormoon haddii laga baaro oo la ogaado ma aragtay wax la yiraahdo transvaginal ultrasound scan wax la yiraahdo oo computer ah oo gudaha lagu fiirinayo tubooyinka ogxaanta makaanka lagu fiirinayo haddii kuwaas aad hesho haddii kuwaas inta la eego la ogaado waxa ku haysta dawadiisa waa la helayaa. ilaah baa dawo leh daawona ilaah baa haya mataqaan laakiin adiga ha isku daahinin 22 sano hadaad ku jirto waxaad u baahan tahay sida u dhaqsaa badan waa inaad dhakhtar heshaa ilaahay dawo ha kuu soo dejiyo. waa tahay waan filayaa Esther oo Kismaayo nagala soo xiriirtay in jawaabtii ku filnayd amba ku aadaneed uu siiyey Dr. Cali Muxuu Aweys. barnaamijku waa barnaamijkii caafimaadka si toos ah ayaad naga daawanaysaan telefishinka Somali Cable Studio uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. waxaad naga soo wacaysaan lambarada eberle xalashan 46 31 82 sidoo kale haddii dalka dibadiisa aad joogto waxaad ka hormarinaysaa +2521 amba +25261 si aad gudaha u soo wacdo oo aad leedahay kadib 5 46 31 82 sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada dhanka fariimaha kale inoo soo diraya. doctor marka laga hadlayo thyroidka waxaa sheegtay in saameyn badan uu ku yeesho dhanka dhalmada oo kale. saameyn intee leeg ayuu ku yeeshaa marka qof yar uu ku dhaco dhan koriinshaha oo kale? cabdicasiis aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. waxa bahalkan uu leeyahay sidiisaba haddii uur aad qaaddo xataa ilmo aan koraynin ayaa jirkaaga gelaya inkastoo ay soo dhacayaan kolleyba labada jeerba way soo dhacayaan laakiin ilmo caato oo tacbaan oo murqa lahayn oo adiga dhibaato fara badan haysa ayaa ku imaanaya marka ayaad dhalaysaa haddiiba aad dhasho haddii kalena way soo daadanayaan. waa tahay. hallo, asalaamu calaykum. hallo hallo waa tahay qofkaasi waan ismaqli weynay sidaa daraaddeed waynu ka gudbaynaa. daawadayaasha kale ayaan jeclahay in aan fursad siino fariimaha kala duwan ay noo soo dirayaan iyadoo toddobaadkii hore aynu ogeen in su-aalo badan aynu ka tagnay saaxiibo fara badan aynu weydiinayeen. doctore marka laga soo gudbo in uu ilmaha caloosha ku jira koriinsho ku yeelanayo qofka yar ee da-da yar
marka uu ku dhaco isagana korinshiis saameyn ku yeelan karaa? cabdicasiis aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. su-aashan lafteeda waa su-aal muhiim ah. ha way ku yeelan karaan, korsiimada way ku yeelanaysaa, maskaxda xataa ma aragtay caqliga saameyn buu ku yeelanayaa. marka adiga waxyaalo badan oo hooyada ay garanayso markuu 4-5 sano markuu gaaro ka hor ma garan karto. Halo, salaamu calaykum. Halo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. waan ku maqlaa walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha waqtigaa nagu yar. Waa Cabdiraxmaan oo jooga Mombasa. haye markaan dhakhtarka waxaan weydiin lahay haddan ka hor ma jamcada soo dhaafay inteeda kala maraan u sheegay markaan ruux oo kumisa kula ay yihiin 0.03 oo ma la saacadeyn kara wax lagu saacadeyn kara oo yihiin ma jirta horta dhakhtartaas aan weydiin lahay waxay ka ahaadaanba. waa markii labaad aan weydiiso waayaa doctorka siina fursadaas. Cabdiraxmaan Mombasa. cabdiraxmaan aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa marka labaad ood noo soo dirayso aniga iyo Somali Cable TV oo live caawa magaalada Muqdisho aan fadhino. marka xigta waxaan ku leeyahay cabdiraxmaan oo 0.03 aad iyo aad bay u dhib badan tahay. daawo khaas ah jirto oo hadduu ilaahay wax ku siiyo lagu heli karo, laakiin waa dhib badan tahay. daawo la yiraahdo Agnus Castus lagama heli karo Africa, waa dhib badan tahay. marka waa jirtaa hal daawo oo xoogaa yar labada xabo meesha ku jirta kubcin karta. aniga dad ku dhala 0.03 waa hayaa, dad aan ku dhalinna waa hayaa. kulli ilaah baa horta dhalmada haya, daawadana ilaaha haya, laakiin aad bay u dhib badan tahay. qofkaas sidii loo soo celiyo waxay u baahan tahay daawo khaas ah. halo, salaamu calaykum. وعليكم السلام. qofkii ugu dambeeyay ayaa tahay, soo dhawow su-aashaada aadna weydiinayso magacaaga halkaad naga soo wacayso. حليمة حسن باليدها نيروبي أن كاسو وعايا. haye waxaan dhakhtarka weydiinayaa dhiig ayaa waqti kasta iga socda. haye marka markii oo maxaa la dhihi jiray mar caadi waaye oo maxaa la dhihi 10 iyo wax buu iga maqnaanaya, marna bishii 3 jeer camal ugu dhacaya. xanuun muxuu hayaa? marka uu imaanaha aad oo la xanuunsanaya, zaid oo la xanuunsanaya. meeqa sana jirtaa Xaliimo? wallahi 22 sano aan jiraa. marna waa dhalay oo hal cunug oo 17 sano camal jiraan dhalay. waa tahay Xaliimo marka su-aasha dambana uma dhalin. bes waa tahay doctorkan siinayna. xaliima aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. su-aashan aadna weydiinayso aniga iyo Somali Cable TV oo live caawa magaalada Muqdisho aanu fadhino. marka xigta reer Nairobi waa dadkaygii waa salaamayaa meel kasta ay joogaanba. Soomaalida meel kasta ay degan yihiin magaalada Nairobi iyo Kenya oo dhan ayaan salaamayaa. marka xigta waxaan ku leeyahay Xaliima, adiga waxaad u eg tahay gabadhii berbera naga soo waceysay oo kale inaad tahay ovary cyst wax la yiraahdo, inuu kugu jiro ovary cyst wax la dhaho. marka waxaa u baahan tahay adiga laftigaaga hormoonada in la baaro iyo transvaginal scan computerka hoosta in la sameeyo. haddii kaas la ogaado waa lagaa daweyn karaa. ilaah baa dawo leh, waa lagaa daweyn karaa. dawo ilaah baa ha soo dejiyaan dhahayaa, laakiin wax la daweyn karo waaya. haddiiba bishii 2 jeer 3 jeer uu imaanayo, waxaa boqolkiiba 95% ay u badan tahay poly ovary cyst wax la yiraahdo inuu jirkaaga ku jiro. marka adiga waqti badan ma qabtid ka dhaqaaq iyow sidii ay lagu daweyn lahaa. ilaah baa dawo leh. waa tahay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka caafimaadka ayaan isla soo gaarnay. waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkiina soo wacay ee su-aalaha aynu uga jawaabnay, daktarku uu caawiyey iyo kuwa iminka khadka ku jira waqti uu ka dhammaaday. dhammaan cid walba oo nala soo xiriirtay. haddii ay jiraan su-aalo aad hayso, jimcaha dambe ayaan u dhigan doonaa. toddobaadka dambe ayaa markaasi lagaga jawaabaya oo la dhihi maayo waa laga soo gudbay. sidaa daraaddeed guud ahaan barnaamijka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. dhanka farsamada Sayd Cali iyo Cabdiraxiin Ceelaaw ayaa gacan iga siinayay. waa saraha barnaamijka Cabdilcasiis Riili. waxaan u mahad celinayaa Dr. Cali Mucaaweys oo barnaamijka la qayb qaadanayay. intaan dib u kulmayno jimcaha dambe, nabadgelyo.